meel yacni guri ay wax dhigayeen miino iyo alaabo isku xirxirayeen si gurigaasi laba guri ay u qarxiyaan ayaa Xamaas RPG nab ku tiri Hobrisk. السلام عليكم كسود وهذا channel كي داعد بولو حبي سيدا لا سوعتان حالي إلا إيمانتا تلابيب أو إسرائيل وحا كتاغن بروديق هبا ورمحا داعي أفر إلا باتن كميدا عيدا مدينة أيا أورك حماس حالي قنيو نك ليري أو معيها داري ورهي محا داعي إذن كان شان إلا باتن كون ودرتود أيا ديشين محيتها أوينتان ورلوغيهن لولك يعني ها حجيان niman rag iska dhiga haba oo farka weyn waad aragteen Benny Gantz waad aragteen Yoav Gallant oo markaasi cadow ahaa hadda waxay ku midoobeen inay midnimo ay muujiyaan oo dadka Falastiiniyiinta oo ay laayaan meel walba ay joogan nimankii waxay la ooynayaan baroordiiqda iyo oohinta ka socota 24 kamid ciidankooda oo ururka Xamaas xalay 24 saacadood ugu dambeysay meel yacni guri ay wax dhigayeen miino iyo alaabo isku xirxirayeen si gurigaasi laba guri ay u qarxiyaan ayaa Xamaas RPG nab ku tiri Hobrisk gurigii qarxi ka dhacay sidaad arkaysan daqiiqadaas qarxi ka dhacay iyo gurigii ku soo dumay ay ciidamadii ku geeriyoodeen marka saaka ilaa ay hadda yahuuda meel walba ay joogaan lugahooda dhulku way xijin lacsan yihiin cabsi war maxaa dhacay Xamaas soo socota Xamaas war nima rag iska dhiga waxa tihiin ciidamada yani bariga dhexo dhan ugu awood badan ayaa tihiin hub casri ayaa haysatiin waxan ayaa haysatiin nimankii maanta waxa ka socda baroordiiq horta commentiga aan ka arko alla weyn jabki gaaray ilaaha aweyn horta commentiga aan ka arko nimanka horta khaniyo waxa ku dhacday aan weligood hore loo ark qaan yuunisan galina qaan yuunisan ka war qaan yuunis ma aha yani waqooyi qazo kala ma ahan meeshan waa meel yani ilaa 87 istiraatiijiyad la dejinayay ilaa 87 dadka qubarada ah markaasi qaza tagay waxay leeyihiin ururka Xamaas kolkii la aasaasaba Xamaas markii la aasaasay 80 ayay bilaabeen qorshahan dhulka inay qodaan tanala ay ka sameeyaan waa magaalo dul saaran waxay leeyihiin waa inaan soo qabanaa Yaxya Sinwar waa inaan soo qabanaa madaxda kale aba hadda aan la hadlay haddadan barnaamijka aan duubayo Washington Post maxay soo qortay Washington Post waxay soo qortay guutooyin kamid ah ciidamada gumeystaha Israa'iil ayaa dib isaga baxaya magaalada Khan Yunis qaar badan oo kamid ah sababtoo ah arimaha istiraatiijiyada oo dhan ay ku fashilmeen dagaalkii habkay u wadeen ay ku fashilmeen waa waxa keenay in guryaha iyo masaajidada iyo isbitaalada yani wax istiraatiijiyad dagaalka kama laha nimanka way iska socdaan guryihii isbitaalada meel walba ayaa la iska qarxinaya marka shalay iyagoo doonaya laba guri oo laba qayb ku kala yaala oo miinooyin geliyay waxyaabaha qarxa geliyay ay gurigii Hobrisk yiraahdeen way wada galeen dhamaantood ururka Xamaas waa ay wada sugayeen meesha marka la arkay inay gurigii ku wada aruureen oo wuxuu Ilaahay rabay ayaa horta Hobrisk ku bilaabatay qaraxii miinadii ay dhigayeen ayaa qarax kala sii dhaliyay gurigii ku soo dumay halkaas ay qaar badan oo ciidankooda kamid ah marka waxa hore loo yiri yani adigoo saaxir ah oo doonaya inaad qof sixirto sixirkii aad qofkaas doonaysay adigu ku qabtay adiga la mise sixray nimankii miinadii adduunyadii ay doonayeen inay markaasi ay ku dhibaateeyaan dadka Falastiiniyiinta guryahooda ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu qadaray in iyagii uu qarax weyn uu ka dhaliyo qarax weyn uu meesha ka dhasho iyagana ay ku baaba'aan marka hadda talaabiib ooyinta ayaa ka socota waba khamenisi qamasini kharasi qabata qarasta ku kacdo wariyaha Axmed sheega warnimo weyn iska dhiga ayaa leeyahay meeshii tacsida taalay oo ciidankii la keenay ay xitaa music ku garaacanayeen dad tacsi u taalo music ma garaacdaan marka oohintan iyo baroordiiqdan iyo waxaan aad wadaan hortiina ayaa la arkay ayaa leeyahay marka oo farka weyn isagoo isgafuurinaya ayuu xitaa soo fadhiistay TV-ga sidaas oo kale Yoav Gallant oo is careysiinaya Benny Gantz warnimayahu shalay soo leedaman lahayn dagaalkan yani Xamaas iyo idinka arin diblomaasiyadeed ku dhameystaa soo shalay idinka ma diidina
soo ladima dhihina idinka iyo xamaas yani si wada hadal miis yani wada imaada oo ugu yaraan xitaa muddo 10 sano ah xabad joojin iyo si nabad ah ku wada noolaada. dadka diida waa kuma soo idinka ma ahan ha maanta marka xanuunku idinku yimid waxa la yiri liqa xanuunkii idinku yimid dhibaatadan idinku timid iska liqa oo dagaalkiina iska sii wata maya. hadda markii ciidankooda qaar badan oo kamid ah ayaa si istiraatiiji ahaan waxay ugu soo baxeen magaalada ee Khan Yunis sida iyaga ay sheegayaan, laakiin sida runta ay tahay cabsida ayaa ku badatay maadaama xamaas arintan ay muddo dheer ay ka baaraan degayeen. istiraatiijiyadan dhibaatadan haddii ay dhacdo hubka meesha ay ku keydsan lahaayeen, xaafadihii lagu dagaalami lahaa, war luqluuq sakad daaqad dariishad shubaako oo bariis kala socoto. waad aragteen iyaguna dad badan ay dilayaan, laakiin dadka ku nool magaalada Gaza iyagu mar hore ma arag ay geerida u diyaar garoobeen. geerida mar hore ay u diyaar garoobeen sababtoo ah dhinacan waxa ka jirta Masar oo iyadana Israa'iil ba ka daran. dhinacan waxa ah Israa'iil oo iyadaba ah midii hooyada iyo balaayada dhan abuurtay. marka dadka inay halkaas ku geeriyoodaan waa wax mar hore ay sii qorshaysteen oo Ilaahay ay mar hore isku dhibeen, laakiin xanuun aan horey loo arag ayaa maalinba maalinta ka dambeysa gumaystaha Israa'iil la taabsiinaya. hadda midii shalay ahayd oo kaliya ay ilaa iyo hadda ay la baroor diiqayaan. ilaa iyo hadda waxay la baroor diiqayaan waa arintaasi. marka ciidamadoodii maalmihii ugu dambeeyay waxay caado ay ka dhigteen xaafadihii ay qabsadaan inay miinooyin ay ku xiraan, kadibna ay hal mar ay qarxiyaan iyagoo weliba quslaya ku faraxsan guryahaas ay dhulka ay dhigayaan. waa loo sugay, waa loo fiirsaday guryihii ay dhulka dhigayeen, masaajidadii, meelihii isbitaalada dadka ay ka qarxinayeen ayay markaasi miinooyin ku xirayeen. hadda ma ahan ogow duqeymo ciidamadooda ay geysanayeen. guryihii ay inta wada tagaan ayay waxyaabaha budada wax qarxa laga sameeyo iyo fiilooyin inta isku xirxiraan ayay meel fog inta ka istaagaan hal mar nab siinayeen, gurihii qarxinayeen. marka shalay iyagoo alaabtii isku xirxiraya laba guri inta kala jira hoolihii ku haya oo hooshii xirxiraya ayaa hal mar meelaysan ogeyn fud looga soo yiri bariiska. nimankii hal maraa lagu bilaabay. wixii dhacay alla weyne subxaanahu wa tacaala aad ayuu ugu warqabaa. wixii dhacay alla weyne subxaanahu wa tacaala si fiican ugu warqabaa. inagana waan ka warhaynaa. jabkooda iska qarsadaan, xafaayadooda iska xirtaan. nimankan marka subxaanallah war nimanka xabaas wala gacana u taagay, war nimankan gacana u taagay. horta geerida yani ma aha wax fudud, wax sahlan ma aha. yani ma jiro maanta qof bini aadana geeri u degdegi kara. xamaas ahaado, Israa'iil ahaado, muslim ahaado, qofkii rab ahaado, laakiin nimankan siday markaas ugu go'an tahay inay dhulkooda u difaacdaan ayaa ah arrin cajiib ah. shalay soo joog waa laga waayay ninka la yiraahdo Oofaarka Weyn. Oofaarka Weyn shalay waa taan idiin sheegay soo joog ayaa laga waayay. hadda soos jiifo ayaa laga hayaa, weliba waxba u harsan. hadda weli dabaqabad ayuu leeyahay, weli gacanta inta laga qabto meel fadhiisa la yiraahdo ayaa hadda weli uu leeyahay. sababtoo ah haddii uu saan ku sii socdo hadda ciidankiisa bis ayaa la dilay. sidaan hore idinkugu sheegay waxaa dhici karta, hadda iga qora, waxaa dhici karta in isaga laf ahaantiisa meel lagu qaarajiyo, ciddii qaarajisaba. sababtoo ah dadkii hadda maanta markii la keenay meeshii qubuuraha ciidamadii lagu aasayay Yahuuda, dadkii yani dadkooda lagu haystay magaalada Gaza ayaa meeshii laf ahaanteed yimid, baraanbax ka dhigayay oo dalbanayay sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka in loo joojiyo, maadaama ilmahoodii kuwo kale ka mid ah yani lagu xasuuqay gudaha magaalada Gaza, nafta looga soo qaaday. marka waxay leeyihiin walaalayaalow yani dagaalka ma sii socon karo, laakiin Oofaarka Weyn iyo oofaaradiisa kale waa ay diideen. wixii ay ka helaan waxba ay naga siin, laakiin waxaad sugtaan waxay tahay kuwaas oo lagu yiraahdo waa ay geeriyoodeen.